warka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika oo loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka oo Mareykanku ka fuliyay degmo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe. Warka ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya ay shalay oo ku beegnayd 16 bishii 12 2019 ay duqeyn dhinaca cirka ka fuliyeen deegaanka Dajuma oo qiyaastii 6 inay duqeyntan ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab sidoo kalena ay ku taageerayeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab sida uu sheegay ku-xigeenka madaxa howlgallada ciidamada Mareykanka ee Afrika General Bradford. Warkan ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in bilihii u dambeeyay Mareykanku horumar ka gaadhay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isla markaana ay awoodi waayeen inay weerar fuliyaan. Mareykanka ayaa sanadkan 2019 waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ah oo ka fuliyo Soomaaliya markaana uu la beegsanayo xarumaha ay ururada xagjirka ku leeyihiin gudaha deegaanada. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee SAB TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.